mar kale iyo kulanti ismaqal wanaagsan saaxiibayaal. Rabadaan Kariim baa idin leeyahay. Waa bishii Rabadaan baa bilatay oo aan ku guda jirnaa maalmaheeda u horreeyay. Bisha Rabadaan waa bil fadlan, waa bil cibaado, waa bil duco inaan dhammaanteen ka wada faa'iidaysano oo Rabbi khayrkeeda inoo wada waafajiyo baa inoo wada rajeynayaa saaxiibayaal. Marka saaxiibayaal waxaan jeclaystay wax yar oo baraarujin ah inaan ka soo hormariyo casharkeennii taxanaha inoo ahaan jiray. Baraarujintaas oo ah sidaan nafteenna iyo arwaaxdeenna culays ugu saari lahayn xoojinta cibaadada iyo camalka wanaagsan oo mar walba Alle noo dhaweynaya. Sidoo kale waxaan meesha ka maqnayn waa ducada. Bishaan waa bil duco oo fursado badan oo dahabi bay leedahay bishaan kuna jira saaxiibayaal. Marka waxaan rabaa wax yar inaan taabto saan fursadahaas duco uga faa'iidaysan lahayn. إلهي قرآن كسوح كير صاحب يال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولا لي الآيات ده صدق ماشي القرآن كأكو قرآن وجدان هذا أنا آخريني معنى هذا وحنا يا إلهي وحلي الدوما هي جوان ودوها وان أجيبي هذا إبريان هاي إبريان آيادان waxay ku dhex jirtaa axkaamta soonka looga hadlayo sidaa darteed iyadoo baryada Allah markasta in la badiyo ay tahay haddana bishan in si aad looga faa'iideystaa walaalayaal. qof markuu ducaysanay ama Ilaahay u baryayo aadaab leedahay. aadaabta ducada waxaa ka mid ah inaad maaragtay ducada intaad bilaabin ka hor waxa weeye aad ku bilaabatid Allah ammaantiisa iyo mahadnaqiisa adoo mar walba Rabbi ku xamdinaya. sidoo kale saliga nabiga inaad ku bilaabatid ducada sallallahu alayhi wasallam inaad naftaada ehelkaaga wadankaaga ummadda islaamka iyo haddaad awlaad leedahay intaba aad u ducaysid. ducooyinka quraanka iyo sunnada nabiga lagu sheegay inaad ku ducaysato marka aad ducaysanayso in qalbigaagu jooga oo qowlka afkaaga soo maraya iyo waxa qalbigaaga ku jira yihiin laba shay is waafaqsan. marka saaxiibayaal intaas rabeen ku baraarujiyo waa mahadsantiin. haddana waxaan gudu galaynaa saaxiibayaal casharkeenni maanta waxaan ku baranaynaa waxyaabaha transportation-ka oo bulshadu mar walba isticmaasho. macnaha waxyaabaha transportation-ka waxaan ka wadaa waxyaabo maarta dadku kala safraan ama ku kala sadcaalaan oo kale ama haddii magaalo joogaan qofku rabo inuu meel kale aado kale maarta waxyaabaha u sahlaya qofka inuu meeshii kale uu rabay si dhaqso ah ku tago ama si dhow oo sahlan ku gaaro. macnaha sida basaska, tareenada, tagaasida iyo waxaas oo dhan mootooyinka. marka waxyaabahaas waxa afgariig lagu yiraahdo baan maanta qaadanaynaa. marka aan wada socono saaxiibayaal. Metaphora transportation gaadiid autokinito car gaari treno train tareen taxi waa isla mid intiiba. scaffold boat doon ama dooni. bilio ship markab. lioforio bus aeroplano airplane diyaarad. motocicleta motorcycle moto podilato bike baaskiil. saaxiibayaal waad soo barateen baan filayaa gaadiidka inta ugu muhiimsanayd weeyaan ama aadka bulshadu u isticmaasho magacyadoodii. marka maanta casharkeen halkaas uu ku egyahay. waana xaaji Yuusuf waxaan ilaahay Rabadaan Kariim waxaana idin leeyahay marna guusha ka rajo dhiganina saaxiibayaal. like iyo subscribe labada nagu saacida aad ba mahadsantiin. waxaan kaga tagay salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.